وبركاته هذه أد بايدي سلامة دمانتي ملو بالدنيا ذاك شوكتان واحد دوني يعني إير كور بحيو طلال كان صوب علي جودهان جيسكا أفريقيا مدوين كي جود البيسي دجانا الصومال ده لا يقعد لي سوق علي جيبوتي صوماليا سوماليلاند يودون بدن أوجيسكا أفريقيا طلال كني أكسفورد فاكسين اللي يحدو ayaa wax soo saaray dalka Ingiriiska jaamacadda Oxford baa ikhtiraacday iyada develop gareysay dowladda Ingiriiska soo saartay talaalkan waxa suuq geyn iyaduna la wada dalka Sweden oo iyaduna kamid ah wadamadan talaalka laga qaadanayo imika hadaba talaalkan ayaa wadamada EU-ga ama European Union-ka intiisa badan iyagu qaatay inay qaataan talaalka wadamada waxa ugu horeeyay wadamada Denmark, Norway Talyaaniga iyo wadamo badan oo Yurub ka mid ah waxa afar ilaa 10 saacadood ee ugu dambeeyay guna ka mid ah Luxembourg waxa ka mid ah sidoo kale imika joojiyay France, Germany iyo Talyaaniga Spain baa iyaduna ku soo biirtay hadaba dalalkan sameeyay talaalkan Oxford vaccine ayaa isagu ku bilaabay dadkiisa waaweyn badankiisa laba wax baan ugu sheegayaa inagu aynaan hay tijaabadii rasmiga ahayd kulli wadamo badan oo inaga horumarsan dunida oo dalkooda la jecel inay caafimaad wanaagsan helaan ayaa diiday bahalkan hadaba laba su'aalood baa isweydiin la inaga dhaqaatiirna ahay culimadii caafimaadkana ahay inay si wanaagsan oo caqli fiyo bahalka la isku tuurtuurayo wadamo badan ay joojinayaan wadamo badan oo waliba uu coronavirus coronavirus badan ku hayay sida Faransiiska iyo Talyaaniga ay kamid yihiin sida in wada ognahay wadamadan Yurub ama reer galbeedku waxa weeye waxay horumarka ku gaareen ama wadamadaasi kale Afrikaanka ay kaga wanaagsan yihiin at least waxay daylugu dhamaano kaliya ta in wax kasta oo dalkooda iyo dadkooda dan u ah mar walba inay soo dhaweeyaan si kasta ba ahaatee wadamadan hadba joojiyay ayaa ilaa imika sababta ugu weyn ay u joojiyeen iyagu waxyaabo kala badan suuqeynta lagu sheegaya wararka qaar warbaahinta Yurub ay qorayso ayaa iyaguna ay sheegaya in wadamada reer Yurub ay kala horsi ugu jiraan iyagoo suuq hoose madow u raacaya talaalka uu soo saaray dalka Russia talaalka cusub ee dalka Russia uu soo saaray kaasoo ay wadamo badan iyagu ku kala horsanayaan oo suuq madow ugu jiraan sida warbaahinta ay qorayso live.com baan adigu ka soo xiganaya wararka way baari karaan dadkiina Soomaalida guud ahaan dunida jooga sidoo kale waxa jira in wadamada badankiisa Faransiiska iyo Germany iyo wadamo caafimaadka ku horeeyay ay yihiin iyaguna inagoo soo dhaweynayna talaalkan guud ahaan horta waxa jira 60 talaal inta aan ogahay oo hay'adda caafimaadka adduunka saxisay ilaa 50 talaal horta intaan hubo oo iyagu vaccine kan oo kala ayaa hadaba kanun baa suuqa si fiican u soo galay Oxford vaccine kan laakiin ikhtiraacadka wadamada qaarna ay wadaan ayaa jira isagana marka Soomaalida mid baa la gudboon deegaanada Soomaalida guud ahaan ee Geeska Afrika inay sameeyaan oo kaliya bar inta in la kala baxayo oo dunidu bari iyo biyo kala dhacayso walkii Soomaalida inta bari iyo biyo loo kala baxayo inaan dadka lagu dadajin oo dadka hore loogu turqin dhibaatada ugu weyn ee lagu sheegayaana waa in guntimada dhiigga uu gunto dad badan baa u dhintay sida la sheegayo dad badan baa tiro qoys taagay propaganda way noqon kartaa ma noqon karto inagu mana raacayno kuwa diidan mana raacayno kuwa wata waxaynu eegaynaa halka dantu ku jirto iyo sida dantu ugu jirto arintaas waxay u baahan tahay go'aan adag siyaasad adag bay u baahan tahay maadaama wadamadeena caafimaadkeedu uu hooseeyo maadaama dalalkeenan ay dib u dhac weyn oo xagga caafimaadka iyo horumarka uu ka jiro wadamo inaga khatarsan inaga aqoon badan caafimaadka inaga wanaagsan waxyaabo badan oo kale inaga horeeya ayaa bahalkan diiday ma oran karayno wadamadaas oo dhan oo siyaasad 8 wadan in ka badan oo Yurub oo EU-ga sidoo kale EU-ga laftarkiisu gudidii EU-ga waxay sheegeen in la qaato talaalka isla EU-dii wadamo kamid ah iyaguna diiday arintan waa arin siyaasad way noqon kartaa rubaadiyada way noqon kartaa laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye wadamo badan baa nafta dadkooda aan khatar geliyeen marka Soomaalidu waxay u baahan tahay inay ka fiirsato barinta bar iyo biyo loo kala dhacayo inaan dadka degdeg loogu turqin talaalkan Oxford vaccine in laga warhayo mudooyinkii ugu dambeeyay wadamo badan oo Ingiriiska uu ugu horeeyo iyo Sweden ayaa aad looga qaadanayay
wadamo kale oo Afrikadaasa South Africa laftirkeedu way joojisay oo wadamadii ugu horeeyay Afrikaanka ay joojiya adiyaad bad u baasantiin intaasi waa intii aan xogogaalka ka ahaa waa inaynu isla socodsiinaa wararka inagoon haba yaraatee dhinacna ahayn dhinacna la safnayn inaynu sida saxda dadka dhexdhexaadnimada ay ku jirto wixii wara inaga soo gaadhay Oxford vaccine-ka in dadka la socodsiiyo iyo wadamada diiday. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.